mogtahay inay kuwan yihiin xuduudaha ugu halista badan adduunka aynu ku noolnahay maanta. kow, dalka North Korea iyo South Korea, xadka u dhaxeeya waqooyiga Korea iyo koonfur Korea waa mid ka mid ah xuduudaha ugu halista badan dunida, waxaana loo yaqaanaa demilitarized zone. badka dhulka u dhaxeeya labadan dal waa 250 mayl, dharar ahaanna waxay dheer tahay 160 mayl, balad ahaanna waxay fidsan tahay 4 kilomitir, waxaana ka dhigaya mid halis badan baa ah. waxaa lagu aasay dhulkan u dhaxeeya labada dal ee xadka ah miinooyin malaayiin gaadhaya, kuwaasoo halis badan. ciidanka militariga labada dalna aad ayay u hubaysan yihiin oo heegan ayay ku jiraan minid walba iyo saacad walba, qofka ka shakiyaanna way dilayaan. 2, India iyo Pakistan. xadka u dhaxeeya Pakistan iyo India, gaar ahaan gobolka Kashmir, waa mid ka mid ah xuduudaha ugu murugsan uguna halista badan caalamka. labadan dal waxay isku hayaan dhul, had iyo jeerna waxay isweydaarsadaan xabado iyo madaafiic, waxaana meesha ka dhigaya mid halis badan baa ah in xuduudkan ay joogaan ciidan aad u badan, waxaana yaala saanad military oo aad u badan. 3, Maraykanka. xadka u dhaxeeya Maraykanka iyo Mexico waa mid ka mid ah xuduudaha ugu adag uguna halista badan ee dunida aynu ku noolnahay maanta. xadka u dhaxeeya waxaa lagu qiyaasaa 1954 mayl oo u dhiganta 3145 kilomitir, waxaana ka dhigayaa xuduudkan mid halis badan oo cabsi ah. waxaa ka dhaca isku dayada tahriibin ugu badan caalamka, sidoo kale waxaa ka dhaca dagaalo ka imaada dhaca daroogada, maadaama dalka Mexico lagu yaqaano daroogada iyo maandooriyaha. sidoo kale waxaa ka dhaca dilal ay geysanayaan kooxaha ka ganacsata waxyaabaha sharci darrada. markaa waa mid halis badan xuduudkan u dhaxeeya labadan dali. haddaba daawade, adiga su-aal haddii aan ku weydiiyo, waa kee xuduudka ugu halista badan adduunka ayaan ku noolnahay maanta? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profileka saaranna aad subscribe dhahdo.